dhalinyaro ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta. Filimkeennu wuxuu ku bilaabanayaa tuulo laga xiiseeyo xanaanaynta maroodiyaasha. Haddana waxay ku jireen wakhtigoodii ugu fiicnaa. Marka xigtana waxaan aragnaa Shanko, taasoo ahayd Raaj walaashii. Haddana waxay la hadlaysay aabaheed Dr. Nair, waxayna u sheegtay inay dhowaan rajaynaysay walaalkeed inuu ku soo laabto tuulada. 10 sano uu maqnaa geerida hooyadii kadib. Intaa kadibna aabaheed waxay u sheegtay in laga yaabo wiilkiisa inuu ogolaaday inuu ku soo laabto tuulada. Xilligaana si lama filaan waxay u aragtay diyaarad daroon oo kor ka duubaysa meeshaan. Goobtaana waxaan ka ogaanaynaa ninka inuu ahaa nin ganacsada oo lagu magacaabo Kishore. Raggan burcadda waxay ka ganacsadaan faanta maroodiga. Tuuladan intay sahminayeenna waxay heleen nooc naadir ah oo maroodiyaasha ka mid ah, kaasoo ku dhow inuu ka dabar go'o adduunka oo dhan. Meel kalena Shanko markay dul saarnayd mid ka mid ah maroodiyaasha, waxay aragtay diyaarad daroona, isla markiina dhagax ayay ku tuurtay, sidaa ayaynu u soo riday ayada. Goob kalena markaan tagno magaalada Mumbai, waxaan aragnaa Raaj oo ahaa dhakhtar xanaanada xoolaha ah, kaasoo mar walba aad u jeclaa inuu daaweeyo xayawaanada. Si wanaagsan ayuuna ula dhaqmi jiray ayaga. Intaa kadibna wuxuu la kulmay sekreteeriyada, waxayna u sheegtay aabihii inuu soo wacay si uu ugu laabto tuuladiisa. Laakiin Raaj ayaa iska diiday arrintaa wuuna baxay. Markuu guriga tagana wuxuu arkay fariin uu u soo diray aabihii, taasoo ugu sheegaya inuu ka soo qayb galay sanad guurada hooyadii. Raajna isla markiiba wuxuu bilaabay inuu tababarto. Intuu tababarka wadana wuxuu dib u xasuustay hooyadii. Intaa kadibna wuxuu dib u xasuustay markuu tuulada joogay, xilligaa uu baranayo fanka dagaalka. Intaa dabadeedna waxaa asaga u timid Mira, sababtoo ah waxay rabtay inay qiso ka qorto aabihii iyo maroodiyaasha uu dhaqdo. sidaa darteedna Raaj waxay ka codsatay inuu u raaco tuuladiisa. Intay wada sheekaysanayeenna Raaj si lama filaana wuxuu u arkay koox dhalinyaro oo dhibaataynaysa yar, isla markiina wuxuu u tagay ayaga, sidoo kalena wuu garaacay. Raajna ugu dambayntii wuxuu ku guulaystay ragga inuu ka badbaadiyo eyga. Muddo kadibna Raaj wuxuu bedelay maskaxdiisa, wuxuuna ogolaaday inuu mar kale aado tuuladiisa. Maalintii xigtana wuxuu raacay bas si uu u aado tuuladiisa, laakiin intuu baska saarnaa waxaa la yaab lahay maroodiyaal inay waddada ka xireen baskoodii. markiina wuxuu ka soo degay baska, wuxuuna u tagay maroodiyaasha asagoo bilaabay inuu la hadlo ayaga. maadaama uu luuqadooda fahmayana, ugu dambayntii wuxuu ku guulaystay inay maroodiyaasha waddada ka wareegaan. intaa kadibna Raaj iyo Mira waxay sii wateen socodkooda. meel kalena ugaarsadaha wuxuu la hadlay mudanihiisa, asagoo u sheegaya qiimaha faanta maroodiga inay gaarayso $2 milyan. haddii aan maroodiga helnana waan taajiraynaa annaga. 3 maalmoodna waa inaad ku qabataa hawsha. meel kalena Mira iyo Raaj ugu dambayntii waxay gaareen tuulada. wax yar kadibna Raaj wuxuu la kulmay walaashii Shanko, isla markiina wuu salaamay maadaama ay kala maqnaayeen 10 sano. intaa kadibna doon ayay wada raaceen si ay u gaaraan gurigooda. haddana Raaj maadaama uu tuuladan ka maqnaa muddo badan, wax kasta asaga waxay la noqdeen wax cusub. intaa dabadeedna wuxuu la kulmay Gaish, kaasoo hadda noqday nin weyn. intaa kadibna walaashii waxay asaga u sheegtay intuu tuulada ka maqnaa maroodiyaasha inay waayeen qof daryeela ayaga. ugu dambayntiina wuxuu la kulmay maroodigiisii Didi. xilligaana wuxuu ka raaligeliyey muddada dheer uu ka maqnaa asaga. intaa kadibna aabihii markuu la kulmay Raaj wuu salaamay. xilligaana aabihii wuxuu asaga u sheegay maroodigan hooyadii inay dileen niman ugaarsata oo ka ganacsata faanta maroodiga. baaritaan kadibna Raaj wuxuu ogaaday qalanjadan inay uur leedahay, sidoo kalena maroodiyaasha kale xilligaa waxay ku maqnaayeen kaynta fog. dhinaca kalena ugaarsadaha wuxuu soo kaxaystay kooxdiisa si ay u ugaarsadaan maroodiyaasha. intaa kadibna daroon ayuu kiciyey si uu ula socdo dhaqdhaqaaqa kaynta. meel kalena Raaj markuu aabihii u tagay wuxuu weydiiyey sababta uu tuulada uga soo kaxayn waayo hooyadii markay jiranay, maadaama haddii magaalada la geeyo laga yaabi lahaa in la daaweeyo ayada. laakiin aabihii ayaa isaga ugu jawaabay, ma fahmaysi micnaha aan meeshaan u jooga aniga. Raajna markuu hadalkiisa dhammaystay wuu baxay. intaa dabadeedna wuxuu la kulmay Mira oo boorsooyinkeeda wadata. meeshaanna gabadhan waxay u timi si ay ula kulanta Dr. Nair. wax yar kadibna way la kulantay, isla markiina waxay u sheegtay inay weriyo tahay, ayna doonaysa inay waraysato asaga. Shanko walaalkeed waxay u sheegtay maalmo kadib inay u dabaaldegayaan dhalashada hooyadood, laakiin wuxuu ka diiday inuu in badan sii joogo tuulada, sababtoo ah shaqo badan ayaa ka taalla magaalada. intaa kadibna mooto ayuu kaxaystay si uu u soo arko maroodiyaasha. intuu waddada ku sii jirana wuxuu xasuustay wakhtigii quruxda badnaa uu yaraantiisa ku soo qaatay tuulada. xoogaa kadib markuu kaynta gaarana, isla markiiba wuxuu qabtay mas soo weeraray, wuuna sii daaya asaga. intaa kadibna wuxuu la kulmay maroodigii ay isla soo koreen, asagoo hor istaagaya
intaa dabadeedna wuxuu sameeyey ciyaartay isla yaqaaneen intaa kadibna wuxuu la tartamay maroodiyaasha asagoo xasuusanaya markii uu yaraa intaa dabadeedna harada ayuu la galay asagoo la ciyaaraya maroodiyaasha waqti qurux badan ayuuna la qaatay ayaga dhinaca kalena burcaddu kaamirada waxay ka arkeen nin la ciyaaraya maroodiyaasha aad bayna ula yaabeen arrinta meel kalena raaj saaxiibkii wuxuu ka raaligeliyey muddadii uu ka maqnaa asaga habeenkii markii la gaarana dhakhtar naay waxaa u timi miira si ay u waraysato asaga waraysiga kadibna wuxuu u tegay wiilkiisa asagoo u sheegaya hooyadii inay diidday in la geeyo magaalada si loo soo daaweeyo ayada sababtoo ah waxay rabtay inay joogto tuuladeeda sidoo kalena ma aysan rabin inay ka tagto maroodiyaasha raajna meeshan wuxuu ka fahmay aabbihii inuu qalad ku eedaynayo asaga intaa kadibna qaladkiisa ayuu qaatay maalintii xigtana waxay isku diyaariyeen dabaaldega sanad guurada hooyadii raajna xilligaa wuxuu bilaabay inuu si fiican ula dhaqmo aabbihii asagoo ka farxinaya meel kalena miiraa waxay sawiraysay wax kasta oo meesha ka dhacaya wax yar kadibna deef ayaa meesha yimi kaasoo ahaa ilaaliyaha kaynta intaa kadibna wuxuu la kulmay raaj maadaama aysan labadooda is arkin muddo 10 sano ana aad bay isku marxabeeyeen ayaga intaa dabadeedna raaj wuxuu dib u xasuustay waqtigii uu yaraantiisa la soo qaatay hooyadii meeshaanna waxaan ka ogaanaynaa inuu aad u jeclaa ayada intaa kadibna asaga iyo aabbihii si wada jira waxay ugu duceeyeen hooyadii habeenkii markii la gaarana wuxuu la sheekaystay walaashii intuu goobtaa joogana waxaa meeshaa yimi nin cabsan waxaana ogaanaynaa ninka magaciisa in la yidhaahdo jaaja asaguna waa deef aabbihii intaa dabadeedna raaj wuxuu u sheegay rag ugaarsataa inay soo galeen kaynta kuwaasoo doonaya inay laayaan maroodiyaasha nasiib darase ninkan ma aysan rumaysan mana aysan badbaadin maroodiyaasha sababtoo ah ninkan waxay u arkayeen inuu waalan yahay asaga wax yar kadibna dhakhtarka taleefankiisa waxaa ka dafay daanyeer wuxuuna u geeyey qof kale goob kalena maroodiyaasha kaynta intay joogeen khatar ayay dareemeen sababtoo ah dadaysan garanayn ayaa kaynta soo galay sidaa darteedna waxay bilaabeen inay qayliyaan diidina markuu codkaa maqlay asna wuu qayliyey ditornaayarna markuu maroodigaa u tagay uu albaabka ka furay maroodigaa si degdega ayuu u cararay islamarkiina dhakhtarku wuxuu dabagalay maroodigaa isagoo gaarigiisa qaadanaya meel kalena raaj maadaama uu buuqaa maqlay hurdada ayuu ka soo kacay markuu ogaaday aabbihii inuu kaynta aadana xilligaa asagoo baqaaya ayuu ka daba baxay aabbihii asagoo qaadanaya mootadiisa goob kalena ugaarsatadu waxay bilaabeen inay laayaan dhammaan maroodiyaashii joogay kaynta markay qaar badan toogteenna waxay bilaabeen inay faanta kala baxaan ayaga xilligaana mid ka mida burcadda ayaa ku guulaystay inuu toogto maroodigii ugu weynaa islamarkiina dhulka ayuu ku dhacay maroodiga dhinaca kalena raaj markuu kaynta gaaray si lama filaana ayaa loo soo weeraray asaga islamarkiina wuxuu iska difaacay burcadda dagaal adag ayuuna kala hortegay ayaga si uu u badbaadiyo naftiisa dagaalkaa intuu socdana ugu dambayntii waa la dhaawacay asaga dhulka ayuuna ku dhacay dhinaca kalena qalanjada horteeda waxay ka aragtay ninkeeda oo meyda islamarkiina aad bay u qaylisay ditornaayirna markuu meeshaa tagay wuxuu arkay burcadda oo faanta maroodiga kala baxaysa markuu la kulmana wuu ku qayliyey ayaga maadaama ay ka laayeen maroodiyaashiisa laakiin mid ka mida burcadda ayaa xabad ku dhuftay meesha ayuuna ku dhaawacmay dhakhtarka diidina waxay aragtay waxa meesha ka dhacaya oo dhan wax yar kadibna raaj ayaa meesha yimi islamarkiina wuxuu arkay maroodigii la dilay intaa kadibna wuxuu arkay aabbihii oo xaalad xun ku jira markuu isku dayay inuu caawiyana islamarkiiba wuu dhintay aabbihii maadaama uu ka soo daahay asaga wax yar kadibna booliska ayaa goobtaa yimi shaankana markay aragtay waxa meeshan ka dhacay way oysay ayada sababtoo ah hadda waxay weysay aabbaheed xilligaana raaj wuxuu meeshan ka ballan qaaday inuu ka aargudan doona raggii dilay aabbihii maalintii xigtana booliska faanta maroodiga dadka hortooda ayay ku gubeen si ay dadka ugu caddeeyaan inuu mamnuuc yahay miiraana waxay duubtay wax kasta oo meesha ka dhacayay islamarkiina raaj wuxuu aas u sameeyey aabbihii aaskaana waxaa ka soo qayb galay maroodiyaasha oo dhan sababtoo ah ditornaayig wuxuu ayaga u ahaa qof jecel oo aad u daryeela ayaga markay waajibkooda guteen oo meydka la gubana way tageen ayaga wax yar kadibna booliska ayaa goobtaa yimi raaj aabbihiina waxay ku eedeeyeen inuu gacansaar la lahaa ugaarsatada raajna maadaama uu ka xanaaqay hadalka sargaalka wuxuu garaacay ninka laakiin booliska ayaa isla markiiba xireen asaga muddo kadib markii saldhigga la geeyana waxay bilaabeen inay ciqaabaan si uu u qirto dembi uusan lahayn sidoo kalena uu u caddeeyo asaga iyo aabbihiiba inay la shaqeeyaan burcadda laakiin isla markiiba wuxuu iska diiday dalabka wuxuuna bilaabay inuu garaaco askarta intuu askarta la dagaalayana si xun ayuu u garaacay ayaga meel kalena shaanko iyo diidi waxay ku guulaysteen inay daaqadda jebiyaan raajna asagoo fursadda ka faa'iidaysan
baxsanayo wuxuu ka baxsaday xabsiga. Daqiiqado uu baxsanaya kadibna wuxuu la kulmay Miira, isla markiina waxay tustay muuqaal sira oo ay ka duubtay burcadda. Raajna markuu xogtaa ogaaday, si degdeg ah wuxuu u aaday kaynta isagoo qaadanaya mootadiisa. Meel kalena Shaanku waxay u yeertay Deva si uu u caawiyo Raaj. Intaa dabadeedna gaarigiisa ayuu qaatay wuxuuna aaday kaynta. Markuu ninka baxana Shaanku ayadana maroodigeeda ayay fuushay si ay kaynta u aado. Goob kalena Raaj ugu dambeyntii wuxuu tagay meeshii lagu laayay maroodiyaasha. Goobtaa markuu xoogaa baarana wuxuu ka helay faanta dhowr maroodi. wax yar kadibna waxaa isaga u yimid Deef. waxaana ogaanaynaa ninkan inuu la shaqeeyo ugaarsatada. meeshaana hadda Deef wuxuu ka sheegay ragga inuu ula shaqaynayo si uu lacag badan u helo asaga. haddana alaabtan igu soo wareeji aniga, waayo lacag badan ayaan ka helayaa. balse Raaj ayaa ka diiday arrinta. intaa dabadeedna Deef baskoolad ayuu ku qabtay asaga si uu u dilo. laakiin Raaj kamuusan cabsan wuxuuna ku adkaystay go'aankiisa. goob kalena Miira waxay aragtay waxa oo dhan, isla markiina waxay bilowday inay duubto wax kasta oo meesha ka dhacaya. meel kalena Shaanku markay kaynta tagtay waxa ayada qabtay ugaarsatada, isla markiina waxay ka degtay maroodiga waxayna isku dhiibtay ayaga. markaan ku laabanno Deef iyo Raajana, dagaal xun ayaa dhex maray labadooda. mid kastoo ayaga ka midana wuxuu ku dadaalayay inuu ka adkaado midka kale. dagaal badan kadibna Raaj wuxuu ka adkaaday Deef, isla markiina ninkaa wuxuu weydiiyey qofka dila aabihii. Deefna wuxuu ugu jawaabay anigu ma dilin aabbaha. haddana haddaan labadeenna isbahaysanno waxaan awood u yeelan doonaa inaan joojinno burcadda. intay wada hadlaayeenna burcadda ayaa soo weeraray ayaga, laakiin Raaj wuxuu iska difaacay burcadda asagoo u dhammaynaya badankood. intuu dagaalkaa socdana waxaa meesha yimi hogaamiyaha burcadda asagoo wata Shaanko. Raajna wuxuu ugu hanjabay inuu dili doono walaashii hadduusan isdhiibin. meel kalena Deef markuu isku dayay inuu badbaadiyo gabadha waa la togtay asaga, sidaa ayuuna ku dhintay. sidoo kalena waxaa la togtay dhulka ayuuna ku dhacay asaga. goob kalena Miira waxay shiday alaarmiga booliska. burcadduna markay codkaa maqleen goobtaa si degdeg ayay isaga carareen ayagoo horay u sii qaadanaya faanta maroodiga. xilligaana Raaj maadaama uu dhaawac xun soo gaaray wuu miir beelay asaga, laakiin muddo kadib Jaaja ayaa helay wuxuuna awooday inuu daaweeyo Raaj asagoo xabadaha ka saaraya. intaa dabadeedna wuxuu gubay meydka wiilkiisa Deef, aad buuna uga murugooday dhacdada xanuunka badan. dhinaca kalena Shaanka weli waxay u afduubneyd burcadda. jirdil badan kadibna doon ayay saareen ayagoo kala tillaabaya webiga. goob kalena Raaj ugu dambayntii wuu soo kacay, laakiin maadaama uu hadda dhaawacnaa wuxuu awoodi waayey inuu socdo asaga. sidoo kalena meeshaan wuxuu ka ogaaday Jaaja inuu badbaadiyo naftiisa. kadibna ninkaa wuxuu asaga u sheegay wiilkiisa inay ka dileen burcadda. Raajna wuxuu sheegay inuu burcadda soo afjari doono, sidoo kalena uu soo badbaadin doono walaashii. muddo kadibna wuxuu bilaabay inuu socdo. intuu meesha joogana mid ka mid ah burcadda taleefankiisa ayuu ka ogaaday meesha saxda oo ay joogaan burcadda. sidaa darteedna si degdeg ah ayuu meesha u aaday asagoo qaadanaya mootadiisa, sababtoo ah wuxuu rabay inuu soo badbaadiyo walaashii, sidoo kalena uu ka aarguto burcadda. meel kalena waxaan aragnaa Kisheef raggiisa oo diyaarinaya faanta maroodiga, sababtoo ah waxay rabeen in laga iibsado ayaga. xilligaana Shaanka waxay ku xirneyd meesha. xoogaa kadibna waxaa meesha yimi burcaddii ayaga ka iibsan lahayd faanta maroodiga. goob kalena xilligaasna waxaa meesha yimi Raaj, isla markiina wuxuu bilaabay inuu mid mid u laayo burcaddii meesha joogeen oo dhan. dagaalka intuu wadana burcadda waxay awoodi waayeen inay hor istaagaan asaga, sababtoo aad buu u dagaalamaya asagoo adeegsanaya xirfadda marshal artiska. dagaal badan kadibna wuxuu ku guulaystay inuu laayo qaar badan oo burcadda ka mid ah. goob kalena Miira waxay timi meesha ayadoo nafteeda khatar gelinaysana waxay gudaha u gashay warshadda. intaa dabadeedna waxay tagtay meel ku habboon si ay u duubto wax kasta oo meesha ka dhacaya. dhinaca kalena Raaj wuxuu awooday inuu galo meeshii ay ku shirayeen burcadda. xilligaana wuxuu arkay ayagoo kala iibsanaya faanta maroodiga. halkii xabbo oo faanana waxay ku kala iibsanayeen $2 milyan. isla waqtigaana Raaj wuxuu weeraray burcadda si uu u burburiyo qorshahooda. sidoo kalena wuxuu soo badbaadiyey walaashii Shaanko asagoo xabsiga ka soo saaraya. intaa dabadeedna wuxuu bilaabay inuu garaaco burcadda si uu uga aarguto ayaga. wax kastana xilligaa wuxuu u sameynaya siduu u soo afjari lahaa burcaddan si tuuladooda ay u noqoto goob ammaan ah. meel kalena Miira wax kasta oo meesha ka dhacaya si live ayay u tabinaysay. booliskuna xilligaa waxay ogaadeen wax kaste. goob kalena Kishoor dagaal badan kadib wuxuu gacanta ku dhigay Raaj iyo walaashii si uu u dilo ayaga. xilligaana wuxuu sheegay asaga iyo aabihii inay ka hor istaageen lacag badan. haddana waxaan rabaa inaan kuu dilo sida aabbaha oo kale, aniga ayaana ka dambeeya wax kaste. Raaj iyo walaashiina markay hadalkaa maqleen aad bay u yaabeen,
laakiin si lama filaana xilligaa waxaa meeshaa u timid diidii waxayna bilowday inay layso burcadda. Raajna isagoo fursaddaa ka faa'iidaysanaya wuxuu la dagaalay Kisho, haddana wuxuu ku dadaalaya siduu u soo afjari lahaa ninkan si uu ugu aargudo aabihii. Sidoo kalena Raaj xilligaa wuxuu bilaabay inuu garaaco burcadda oo dhan si uu u soo afjaro ayaga. Goob kalena Kishof markuu rabay inuu baskooladda soo qaato, diidii ayaa aragtay asaga, waxayna soo xasuusatay dhibkii uu u geystay maroodiyaasha. sidaa darteedna iyadoo aan fursad siinayn waxay meeshaa ku soo afjartay ninka ayadoo ku tumanaysa. dhinaca kalena booliska ayaa meeshaan yimi. intaa kadibna waxay xidheen dhammaan dadkii ku lugta lahaa ugaarsiga maroodiyaasha si loo maxkamadeeyo ayaga. Raajahana xilligaa wuxuu helay faan maroodi. goob kalena Raaj wuxuu ogaaday diidii inay dhowaan dhalayso ayada. 3 bilood kadibna maadaama uu maroodi cusub ku soo biiray tuuladooda waxay u dabaaldegeen arrinta. maroodigaana waxay u bixiyeen Aisha. Raajna xilligaa wuxuu la ciyaaraya maroodiga yar asagoo aad ugu faraxsan ku noolaanshaha tuuladan. muddo kadibna Miira ugu dambayntii waxay soo bandhigtay waraysigii ay ka qaaday Dr. Nair. xilligaana wiilkiisa Raaj wuxuu ka codsaday inuu joogo tuuladan, sidoo kalena wuxuu ku dhiirigeliyay inuu ilaaliyo maroodiyaasha tuuladooda si aan loo laynin ayaga, sababtoo ah dadka oo dhan waxay rabaan inay dabar gooyaan maroodiyaasha si ay faantooda lacag badan uga helaan ayaga. Raajna ugu dambayntii wuxuu qaatay talada aabihii, wuxuuna go'aansaday cimrigiisa inta ka dhiman inuu ku noolaado tuuladan si uu u ilaaliyo maroodiyaasha. filimkeennina meesha ayuu ku soo dhammaaday. haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, fadlan muuqaalkeena laag saar, sidoo kalena janalkeena ku soo biiro subscribe. waa ku mahadsan tahay la joogistaada.